aynu ku bilownay daawadayaal magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool duleedkeeda ayaa waxaa ka soconaya dagaal culus oo dhaxmaray ciidanka maamulka Somaliland iyo waliba sidoo kale ciidanka xaquudirirka ee SSC Qaatumo. dagaalka ayaa bilowday kadib markii rasaas ay ka soo rideen taliska ay ku xaniban yihiin ee Gooja Cadde ciidamada SNM iyadoo rasaas kale ay ugu jawaabeen ciidanka xaquudirirka ee SSC Qaatumo oo ku hareeraysan taliska Gooja Cadde. ciidamada SSC Qaatumo ayaana waxa ay sheegeen inay iska caabiyeen weerar ay doonayeen inay soo qaadaan ciidanka maamulka Somaliland. sidoo kale madaafiic ayaa saacadihii ugu dambeeyay ku soo dhacay magaalada Laascaanood duleedkeeda iyadoo madaafiicdaasi ay soo ridayeen ciidanka maamulka Somaliland. garaadada SSC Qaatumo ayaana loogu baaqay inay amar buuxo siiyaan ciidanka xaquudirirka ee SSC Qaatumo si ay u soo afjaraan ciidamada SNM ee ku sugan taliska Gooja Cadde. haweenka ka soo jeedo Laascaanood ee ku barakacay dagaaladii ka dhacay xarunta gobolka Sool ayaa waxa ay si gaar ah uga dalbadeen garaadka guud ee SSC Qaatumo Garaad Jaamac Garaad Cali in uu go'aankii ugu dambeeyay qaato oo uu amar ku siiyo ciidamada xaquudirirka in ay ku gubaan godka Gooja Cadde ee ay ku dhuumaalaysanayaan ciidamada maamulka Somaliland. dhinaca kale garaadada SSC Qaatumo oo ay wehliyaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo duqa degmada Laascaanood ayaa kormeer ku tagay taliska booliiska qaybta guud ee gobolka Sool. isimada iyo xubnaha kale ee la socday ayaa waxaa halkaasi kulan xasaasi ay kula qaateen saraakiisha iyo cutubyo ka tirsan ciidanka booliiska ee SSC Qaatumo. golaha isimada dhaqanka ayaa saraakiisha ciidanka booliiska waxay ka dhageysteen warbixino ku saabsan xaaladda amni ee magaalada iyo shaqooyinka muhiimka ee ciidanka booliiska ay u hayaan shacabkooda. isimada SSC ayaa faray dhammaan ciidanka booliiska inay sii laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan xaqiijinta amniga guud ee magaalada isla markaasina ay gacan bira ku qabtaan dhammaan falalka lidiga kuwa amniga iyo xasiloonida. Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil oo ah garaadka gobolka Sool ayaa waxa uu boogaadiyay shaqadii ay qabteen ciidanka booliiska ee si degdeg ah lagu howlgeliyay, waxaana uu sheegay taliya Gowrac iyo ciidamadiisa in ay shaqooyin fiican qabteen habeenadii la soo dhaafay. garaadka ayaa waxa uu sidoo kale ciidamada booliiska ka dalbaday in ay si aada u adkeeyaan nabadgelyada magaalada Laascaanood si looga hortago dhagar kasta oo laga soo maleegayo Hargeysa. garaadka ayaa waxa uu ballan qaaday in wixii gaadiid iyo hub dheeraad ah oo ay u baahan yihiin ciidamada booliiska la siin doono. garaadka gobolka Sool ayaa beeniyay inay jirto haweenay lagu kufsaday magaalada Laascaanood, waxaana uu ku tilmaamay warkaasi inuu yahay war been abuur ah oo ay tabinayaan maamulka Somaliland. maanta waxa weeye waxa la roob isla bidinaadeegaaliyo roob maalin lama dhisin. haddii hadda sawirka uu bixinayo in qalab badan idinka maqan yahay shakhsi ahaan ay dhisantii waan ognahay oo rag waxa weeye la soo xulay oo aan bilwad lahayn oo qiimo badan. haddana waxa weeye inta idinka dhiman haddii dress tahay iyo haddii gaadiid tahayba sida ugu dhaqsaha badan baad helaysaan. waxa kaliya aan idin sheegaynaa inaad magaalada gacan bira ku qabataan, in waxa weeye ciddii idinka hor timaada aad awood u leedihiin tallaabo kasta oo aad ka qaadi kartaa inaad ka qaadaan. taa micnaheedu waxa weeye in magaalada amnigeeda la sugo, haddii ay khamri tahay iyo haddii nin si xun u soconayaba ay tahayba inaad magaalada safaysaan baa la doonayaa. international community-ga iyo ummaddana waxaan u sheegaynaa Laascaanood inay degmadii gobolkii uu dhisan yahay, qaybtii booliiska uu leeyahay, saldhigyadii uu leeyahay, maxkamadihii uu leeyahay, jeelkii uu leeyahay, dowladda hoose ay shaqaynayso. waa maamulka magaalada ka jira wey. taana ummaddaan u sheegaynaa. anigu garaadkii reerkaan ahay waxaan maqlayay gabadh baa la kufsaday. gabadha la kufsaday anu qarin maayo, idaabadeedaaba jooga hadday jirto wax gabadh la kufsaday ma jiraan, waa been wey. ciddii halkan lagu dilayna 3 dil baa dhacayoo labadii horena waxa weeye labadii qof ee dilay waa la soo qabtay waa laga wada hadlay. abaanduule cali bootaan oo la dhashay Faysal Bootaan oo ahaa taliyaha ciidanka Gooja Cadde ee maamulka SNM ayaa goor dhaweyd ciidamada xaquudirirka SSC ay ku dileen gudaha saldhigga Gooja Cadde. ninkan lagu magacaabo cali bootaan ayaa waxa uu ka mid ahaa
saraakiisha muddaba ka dagaalamaysay gudaha saldhigga gooja cadde isagoo ka garab dagaalami jiray walaalkiis Faysal Bootaan oo dhaawac soo gaaray u yaala weli magaalada Burco ee gobolka Togdheer. sargaalkan lagu magacaabo Cali Bootaan ayaa goor dhaweyd saraakiil ka tirsan ciidamada xaq u dirirka SSC ay xaqiijiyeen in uu ku geeriyooday dagaalka weli ka socda duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool si gaar ah afaafka hore ee saldhigga gooja cadde. ciidamada xaq u dirirka SSC ayaa ku guuleystay in ay si toos ah gacanta ugu dhigaan goobo muhiim ah oo ka tirsan gooja cadde. waxay si toos ah galabnimadii hore ee maanta u qabsadeen daanta galbeed ee saldhigga gooja cadde, halkaas oo gabi ahaanba ay ka qaadeen tilaabo wax ku oola. ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC ayaana waxa ay ilaa iyo hadda gacanta ku hayaan aagga galbeed ee saldhigga gooja cadde, waxaana u haray jihooyinka kale oo ay degan yihiin jifooyin ka tirsan beesha Isaaq. aaggan galbeed waxaa baneeyay isla markaana hore u fadhin jiray ciidamada uu hogaaminayay ninka lagu magacaabo Mahad Cabaashe, taas oo qayb ka ah guulaha ciidamada xaq u dirirka SSC ay gaareen dagaalka saacadihii la soo dhaafay socday. ciidamada xaq u dirirka SSC waxay sheegeen in aagga Maraaga uu ka dhacay dagaal qaraar oo dhinacyadu aysan waxba isku reeban, isla markaana dagaalkaas uu u muuqdo inuu yahay mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa ee dhacay maalmihii la soo dhaafay. dagaalka qaybta ugu culus waxay ka dhacday aagga Maraaga, halkaas oo ah halka inta badan dagaalada qaraar ay ka dhacaan. waxaa halkaas lagu dilay oo madaxa qudirka SSC ay si toos ah dhigta dhiiga ugu dareen ninka lagu magacaabo Abaanduule Cali Bootaan oo kamid ahaa amaanduulayaasha guutooyinka kala duwan ee ku sugan gudaha saldhigga gooja cadde, iyada oo abaanduulahan meydkiisu weli u yaalo aagga Maraaga, isla markaana ciidamada xaq u dirirka SSC inay dul istaageen meydkiisa oo ay ka carareen ciidamada SNM. ninkan lagu magacaabo Cali Bootaan waxa uu kamid ahaa xubnaha farakutiriska ah ee Muuse Biixi hadda uu aadka ugu kalsoon yahay, isla markaana ku sugan gudaha saldhigga gooja cadde, iyagoo gaaray guulo la taaban karo. arinta la xiriirtay in uu geeriyooday Cali Bootaan isla markaana uu dhaawacmay ninka la yiraahdo Faysal Bootaan waxay ka dhigan tahay wajigaba xoog leh oo soo gaaray nidaamka SNM iyo sidoo kale qorshaha Muuse Biixi ee ahaa in magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ay ciidamadiisu qabsadaan. walow toddobaadyadii la soo dhaafay qorshahaas wax badan ay iska bedeleen, isla markaana uu xaqiiqsaday ninkan lagu magacaabo Muuse Biixi in aysan Laascaanood waxba ka qaadi karin, haddana waxaa socday qorsho weli uu rajo ku qabay Muuse Biixi inuu suuro geli karo oo Laascaanood ay ku qabsan karaan. waxaa kala duwanaana qorshaha ay leeyihiin saraakiisha ku go'doonsan gudaha saldhigga gooja cadde oo Cali Bootaanka maanta nolosha sida tooska u macsalaameeyay oo qayb ka ahaa, iyo sidoo kale rajooyinka iyo himilooyinka beenta ah ee laga soo abaabulo magaalada Hargeysa. saraakiisha ku go'doonsan gudaha saldhigga gooja cadde oo uu kamid yahay ninkan maanta meydkiisa laga tilaabsaday ee Cali Bootaan waxay si toos ah uga fakirayeen toddobaadyadii la soo dhaafay sida ay uga bixi karaan gudaha saldhigga gooja cadde, iyo sidoo kale qaabka ay gabi ahaanba meesha uga saari karaan wax walba oo la xiriira in ay gudaha saldhiggaasi ku sii go'doonsanaadaan ciidamada xaq u dirirka ana ay qaadaan tilaabo ay maalin walba sargaal madaxa ugu dhufanayaan. waxaana fakirkooda ugu badan uu ahaa in mar un ay ka baxaan gudaha saldhigga gooja cadde. dhowr jeer hore ayayna qaadeen tilaabooyin ay doonayaan in saldhiggaas ay uga baxaan, balse ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC ayaa gabi ahaanba diidanaa isku dayadaasi. saaka ugu dambeysay dagaalkan waxa uu ka qarxay ciidamo ka tirsan kuwa SNM oo isku dayay in ay gudaha saldhigga gooja cadde gabi ahaanba isaga baxaan oo baneeyaan. ciidamada xaq u dirirka SSC ayaana u muuqday in ay ku jiraan maalmahoodii ugu adkaa, muhiimna ay u ahayd in ay si toos ah uga jawaabaan baaqa garaadka. ciidamada SSC si toos ah ayay u qaateen go'aamo adag, waxayna meel la yaqaan uga soo hareen ciidamada SNM ee ku dhibaataysan gudaha saldhigga gooja cadde. ciidamadan ku dhibaataysan gudaha saldhigga gooja cadde ayaa qaatay go'aan u muuqday inuu yahay mid aysan si weyn uga baaraan degin, waxayna go'aansadeen in gabi ahaanba ay baneeyaan saldhigga gooja cadde. arinta culayskeeda leh ee hortaagnayd dhinacyadan ayaa waxay sidoo kale ka dhigan tahay in loo baahnaa guud ahaanba tilaabooyin kala duwan oo meesha looga saarayo nidaamka SNM iyo sii joogitaankiisa deegaanada SSC.
ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC ayaa si toos ah u qaatay go'aanka ah in garaadada oo awaamir bixiyay la fuliyo. dagaalka waxa uu muuqdaa saaka inuu yahay mid faraha ka baxay ilaa maanta soo socday xilligan oo salaada maqrib laga baxay wali waxa la maqlayaa rasaas teelteela oo ka dhacaysa gudaha saldhigga Gooja Cadde. madaafiicda waxa la iskula galay gudaha saldhiggaas waxa loo daatay goobo muhiim ah oo ka tirsan saldhigga Gooja Cadde waxaana meesha ka baxay isku day walba oo lagu doonayay in lagu meelmariyo qorshayaasha kala duwan ee nidaamka SNM ay doonayaan in ay si toos ah uga dhaqangeliyaan deegaanadaasi. guud ahaanba qorshayaashaas meesha ayay ka bixeen mana jirto ilaa iyo hadda wax isfahan ah oo arrimahaas laga gaari karo. waxaa si toos ah ciidamada xaq u dirirku ay guulo la taaban karo uga gaareen dagaaladii ugu dambeeyay ee maanta ay qaadeen waxayna ka dhigan tahay tilaabooyinka ay qaadeen inay gaareen guulo wax ku ool ah oo la taaban karo. guulahaas ayaana muujinaya sida ay ciidamada SNM ugu jabeen dagaalka. Faisal Bootaan oo dhaawiciisu uu ku yaalo gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa si toos ah goor dhaweyd dhegta loogu shubay in walaalkiis Cali Bootaan oo abaanduulo ahaa uuna u diyaarinayay in uu noqdo ninka isaga bedeli doona hadda dhegta dhiiga loo daray isla markaana aysan jirin wax tilaabo ah oo uu qaadi karo. ninkan lagu magacaabo Faisal Bootaan ayaana la sheegay in uu si weyn u shoogsan yahay isla markaana xataa xoguhu waxay tibaaxayaan in dhowr jeer uu sheegay in uu u baahan yahay meydka walaalkiis loona sheegay in meydkiisa laga cararay. Faisal Bootaan ayaana wacad ku maray in uu dul tagi doono meydka walaalkiis oo isaga baxay isbitaalka balse dadka ehelkiisa ayaa hadda ku hareeraysan. quraan ayaa lagu akhrinayaa oo wadaadda ayaa loogu yeeray isagoo ku sugan gudaha isbitaalka. ehelkiisa ayaana hadda ugu laabqaboojinaya in ninkaas uu dhintay oo kaliya loo baahan yahay in dhalinyarada kale ee ciidankiisa ahaa isku jifadana ay yihiin ee wali ku go'doonsan gudaha saldhigga Gooja Cadde qaabka loo caymin lahaa oo looga soo saari lahaa halkaas laga shaqeeyo. ninkan lagu magacaabo Faisal Bootaan ayaa hadda isaga la soo warinaya iska badaa geerida Cali Bootaan in xaaladiisu ay ka sii darayso. dhiigga ayaa la soo wariyay inuu ku kacay isla markaana xaaladiisu ay u muuqato in marba mar ka dambeeya ay ka sii darayso. ninkan lagu magacaabo Cali Bootaan ayaana waxa gabi ahaanba aan xitaa aysan arkin ciidamada SNM meydkiisa. ciidamada SSC ayaana sheegay in ay dul istaageen meydkiisa isla markaana ay qaateen go'aan ah in ay si toos ah u qabsadeen qaar ka mid ah gaadiidkii ciidamada SNM dhaawacyadooda iyo sidoo kale meydadkoodaba. jab xoog leh iyo fashil ayaana ka soo gaaray ciidamada SNM dagaalkii ugu dambeeyay ee maanta ay ku galeen aagaga deegaanada dhankaas iyo deegaanada SSC. dagaalka ilaa iyo hadda laga maqlayo gudaha Gooja Cadde ayaana ciidamada xaq u dirirku waxay warqabad u sheegeen inay yihiin dagaallo iyo rasaas ay ku bursanayaan kuna ceyrsanayaan ciidamada SNM ee haraadiga ah. waxaana si toos ah u muuqataa in gabi ahaanba meesha laga saaray tilaabooyinka kala duwan ee ay doonayaan inay ku dhaqangeliyaan arrimaha taagan.